warahmatullahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada shabakada Reem Groups. waa shabakada waxda luqadda afka Soomaaliga ee laga barto cilmiga ICT-ga. waa casharran cusub, waa new course oo noo bilowmi doona imika. runtii aad bay u dheeraan doonaan oo waa course cusub oo imtixaan ahaan doonaan, episode badan bay lahaan doonaan insha Allah. waxaa la yidhahdaa basic network A+. waa macalinka Jamaal. wixii su'aalaad ka qabtaan course-yada noo socda waa reemgroups@gmail.com. wax preparation waa qalin iyo buug aad qorato notice-kan. runtii imtixaan baa ahaan doona markaynu dhamaysano koorsooyinkan dhammaantood. marka aynu dhamaysano ilaa iyo episode ugu dambeeya imtixaan baa markaa la qaadi doonaa. adigu waxaad imika u baahan tahay qora ama notepad ku qoro ama sticky note ama qalin iyo buug. waa course-yo wata notice. marka waan iska bilaaban doonaa. waxaynu noo bilaabaynaa network A+. iska bilaaban doonaa. network plus waa maxay? su-aasha ugu horeysa isweydiinaysa network waa maxay? waa its interconnection of device ama devices. taasi waa ama jamac ama mufrad noqon kartaaba device markii. hadaba network marka lagu weydiiyo ama networking way kala duwan yihiin. ing markasta waa present ma aha runtii, laakiin haddana networking waa si u shaqeynayaan. networkna waxa weeyaan waa interconnectionkii. hadaba networking waxa weeyaan is a communication, waxa weeyaan waa wada xiriirka ka dhaxeeya between ka dhaxeeya the interconnected device. device-yadan marka lagu leeyahay waa interconnection of devices markay isku xidhiidhsan yihiin oo communication ka dhaxeeya. marka maxay share garanayaan? iyagoo maxay share garanayaan? network resource-ka. maxaa ka mid ah network resource-ka? waxaa ka mid ah files, folders, waxyaabo noocaas media, waxyaabahaas oo dhan waa lagu share garan karaa. marka networking waxaa meelna qorateen aad fahanteen. okay, hadaba sidan oo kale ayay u share garanayaan files iyo folders iyo wax kasta. computerkan wuxuu la share garanayaa fileska, folderska computerkan kale isagoo oo dhex maraya through maxay? through hub. wax la yiraahdo hub baa la yiraahdaa. wuxuu ka caawinayaa inay xiriiriyo computerada aad u badan, laakiin midna uu ku xunyo in arki doonaa. laakiin horta bal hubku wuxuu yahay aynu eegna. hadda hubka definition-kiisa aynu eegno waa repeater of hub. waxa weeyaan hadaba repeater waa dib u soo celiye. hubku wuxuu ku xun yahay marka hore waa imika kale. haddii aan dib ugu noqono sawirkii marka hore, imika kale halkan oo kale aan ugu fadhiyo, aad doonayso qof kale xaggan fadhiya inaad message dirto ama aad file u dirto, file share garayso, kan oo qoran ma u tagayo, laakiin wuxuu ku xun yahay uu faafinayaa, kan buu geynayaa, kan kale uu geynayaa. printerkan ifan wuu kasoo noqonaya, laakiin waa printer isagu maaha mid aqbalaya, laakiin way wada arkayaan dadka kugula xidhan meesha dhan. hadaba waa kan wuxuu yidhi a repeater of hub is an older version. marka waa mid hore laga baxay weeyaan, waa older version hore of switch ahaan jiray, which also connect kaasoo ku xidhiidhsan device-yada lagu xidhiidhiyo together iyadoo gooni iyadoo lasoo wada xidhiidha device-yada dhan. but laakiin the packets of data, hadaba daatada bahalka ay xidhiidhsanayaan computerada xidhiidhsanayaan are sent to everything. waxaa loo dirayaa mid kasta. san imika idin sheegay, markuu kan adigu aad joogto ama kan aad joogto aad isleedahay u dir message kaa horeeya ama kan xaggan kaa xiga, waxaa arkaya kan buu diraya, haddana kasoo noqonaya, kan buu diraya, haddana kasoo noqonaya, kaad marka dambe uu tegaya. saas oo kale ayuu sameynaya. marka network ku jira, marka network ku xidhiidhsan except laga reebo the senderka. marka laga reebo hadaba senderku su'aal bal isweydiinaya, senderku waa kuma? san idin sheegay haddaad adigu kan fadhido waa senderkii baatay. kan kale markaad u dirto adigu maana kugu soo noqonayn, laakiin saddexda kale oo dhan wuu kusoo noqonayaa except the sender. so it's less efficient marka and less private. marka horta wax private la ahdaa farahay ka baxayaan, wax aad kaydsanayso private la ahdaa ma jiraan, waayo waa kan cid kasta arkaysa oo ku jirta network. waxaan filayaa inaad fahanteen. kan waan ka noqonaya. hadaba 3 tables of network. network waxa loo qaybiyaa 3 wax. waa LAN, WAN iyo MAN. MAN wuu dad baan u dhiganaynaa, laakiin horta waxaan doonayaa maanta in labadan isla fahno. LAN-ka iyo WAN-ka in isla fahnaan doonaya. LAN waxaa loo soo gaabiyo waa local area network. WAN waxaa la soo gaabiyaa wide area network. hadda line in gudagalna wuxuu ugu jeedaa waa local area network. hadaba waxa weeyaan network waxa weeyaan waa wada xiriir aynu halkii kusoo aragnay. okay, confined wuxuu ku kooban yahay oo qoran to one building, dhismo qura or a site ama meel. anaftan LAN hadaba LAN-ku local area network waa private. so ma hasan soo sheegnay habka uu qaybinay cid kasta, laakiin waa private network weeyaan, belonging kaasoo iska leeyihiin to an organization, urur baa iska leh, or a business ama meel shaqo. hadaba because local area network, hadaba local area network ama local area network isku waa geographically small.
hadhow su-aalaha in la weydiiya laga yaabo lagu dhahdo what's a network area info. isagoo geographically yar oo aad u yar, they usually use cables, waxay isticmaalaan xadhko. yaraanta awgeed oo ay geographic ahaan aad usoo yaryihiin waxay isticmaalaan xadhko aad iyo xadhko aad bay u dhaadheeraan karaan. marka or low power radio aad u yar oo la dhahdo wireless bay isticmaalaan for the network connection. inaguna siduu isticmaalo labadaa waxaynu sheegnay ee wireka iyo network maxaaha wifi-ga. isagoo cablekii isticmaalaya waa kan, habkii ama switchkii u qaybinaya waa kan waa cableski, kuwan clientski waxa weeyaan waa macaamiisha kuwii wax isticmaalayay, khidmad doonkii weeyaan. kan waa serverkii ninkii khidmadda bixinayay. marka printerkii waa kan, waa cable bay isticmaalayaan. markan waa LAN, waa local area network. markii haddaba xadhkaha meesha laga saaro ee la isticmaalo wifi ahaan ama infrared waxay naqaano oo wireless ah, waa kan xadhka kuma xidhna laakiin radio ahaan buu u gudbinaya, oo computeradu way leeyihiin wireless driver midhan. waan ku aragnay computeradana waa wireless din. marka kan waa wireless LAN, xaggana ku aragno kana waa wired, isagoo wireless. inta uga noqono haddaba waxaan u malaynaya in isla fahanay LAN waxa la dhahdo. marka aynu iminka waan tagno oo ah wide area network. okay, a wide area network buu yidhi haddaba. a wide area network is a network, waa network that extend kaas oo kala ballaaran runtii aad over a large area uu kala ballaaran because waan haddaba waanku araftan geographically spread of a large area, isagoo meel ballaaran saa u kala baxaya. and links haddaba waxa xidhiidhiya between computers and of a long distance. marka in badan buu ayuu ku expand garaysan yahay. maaha saynu soo sheegnay LAN-ka aad buu ka ballaaran yahay long distance. they often use quite expensive connection, waxay isticmaalaan connection aad u qaaliya oo technology. maxaa kamid ah marka optic fibers ayaa kamid ah, aad uga qaaliyiin sida LAN-ka aynu soo sheegnay oo cable isticmaala maaha, laakiin kan optical fiber bay isticmaalaan wax la dhahdo oo quraarada. okay, cables, satellite radio links, okay, microphones, radio links, iyagoo waxyaabahaas isticmaalaan. inaguna sanadaba uu eegayay waanku shaqadiisu qabto. waanka lagu sheegaya waa noocan, waa kan LAN-kii iyo LAN-kii. markaa 3 LAN oo lasoo xiriiriyay ayaa sameynaya waan wax la dhahdo, kuwaasoo markaas ay dhiishashkiina soo gudbinayaan satellite-ka. waxay isticmaalayaan fiber optics aan soo sheegnay oo aad expensive ah, laakiin xawaarahoodu uu aad u duulayo, uu aad ugu shaqeynaya xawaarahoodu, uu runaantii ka dheeraynayo kanaynu soo sheegnay LAN-ka. okay, aan dib uga noqono. waxaan filayaa in waan isla fahanay. haddana bal aynu eegno labadan qaybood aynu aragnay. aan maanka hadhow una soo noqon doonaa. waxaan waxbayaan ardayda ku dawaaqin hadhow dib aynu uga soo noqon doonaa maanka si yaroo ka fudud baan idin fahansiinayaa. aynu eegno haddaba bal definitionka waxyaabaha aynu u baahantihiin inaad ogaato, materialska aad u baahantihiin inaad ogaato, sida routerka, waxyaabaha switchka, hubka. haddaba switch waa noocee? switchka waa kan sawirkiisu, screenshot waad ka qaadan kartaa si haddaanad dadka inaad qorato artikaladan ama qoraalkan. lots of ports, haddaba wuxuu leeyahay portyo badan, godad badan buu leeyahay to connect, iyadoo lagu xidhiidhiyo device on LAN, adoo LAN ahaan lagu xidhiidhin karaya sida. marka halkan inagu switch nidhi markii hore maxaynu ku aragnay isagoo barta dhex yaala oo haba baynu aragnay haba. marka habku isagu markiin ku xidhnay meelahan oo dhan wuxuu qaybinayay dadka kale arkayay waxyaabaha diraysa. isagoo nidhi private ma jiraayo meeshaas uu hab mara, meeshu hab yaalo private ma jiraayo, laakiin switchku ka wacan yahay. it forwards packets to the extended destination only. marka extended destination only, meesha doonaysay oo qura ayaan buu tegayaa. meesha doonaysay oo qura ayaan buu diraysaa. qofka doonaysay iminka cable-kaasan ku xidhsanay, cable-ka kalena qof kale ku xidhsan, kan kale qof kale ma doonayo inuu qofkan ka arko, laakiin kaasan doonaya inuu arko. marka kaasu manu diraya. waayo haddaba sababtaad ku ogaanaysa waa waxay sababta uu habku uu qof kasta uu ku qaybiyo secret message-ka ama waxa uu diri lahayd qof kale. switchkuna uu qofka doonaysay oo qura geeyo waa maxay? it does only this by using, iyadoo waxay isticmaalaysaa qura MAC address wax la dhahdo. MAC address bay isticmaalaysaa. marka computerkan halkan ku xidhan iyo halkan ku xidhan isku MAC address ma noqon karaan. each computer has its own MAC address baa la dhahdaa. computer kasta wuxuu leeyahay MAC address-kiisa, kaasoo aan lagana bedeli karin. marka habku isagu MAC address ma yaqaan, wuxuu qaybiyaa informationka computerada kale ku xidhan dadweynaha qof dirto. laakiin switchku saynu imika aragnay MAC address bay isticmaalaa. qofka doonaysay extended destination only, qofka doonaysay qura muu diraya switch. okay, habkan waynu soo aragnay. repeater hub is older version switch haraynu aragnay. markaan kan la geliyo isagoo haddaba kan wuxuu ku xigay baan nidhi hadhow laga yaabo in su'aal weydiiyo lagu wado
what's the difference between switch and hub baa lagu odhan karaa. Marka waa in adaa garanaya waxaad ku qori karto. waana nili to everyone baa loo diri karaa. kana waa ka extend destination only, waa both baan ka dhigay si loo wada fahmo. okay router baa hadaba yimi. routerku waa maxay? router forward. hadaba routerka lagu sheegaya noocani, routerku waa noocan. A packet is to make sure wuxuu hubiyaa and to reach their destination. marka routerka isagu wuxuu directly loogu xidhiidhin karaa to the internetka. they pass data through different networks. qaybo kala duwan oo waxay dhex mariyaan daatada qaybo kala duwan oo networka. router may be used forward packet from a LAN isagoo loo kala eriyo network lagu xidhiidhin karo. halkan waxaad samayn kartaa inaan inoo soo qaada bay ahayd sawir yar ama idinka caawinaya. markaad xaggan soo dhigato ISP-gii ama shirkadii provide garanaysay internetka sida Telesom iyo Somtel, routerkuna wuxuu kugu xidhin karaa. hadda settings menu arki doonaa bay they pass the data through the different network. routerka hadda wuxuu may used waxaa loo isticmaali karaa to forward packet data. packet inuu soo dib u soo celiyo ama uu laga isticmaali karo maxay ahayd from a LAN loo kala eriyo networka to an ISP. maxaan ku ori LAN ilaa iyo ISP ayaa isku xidhin kartaa routerka. routerku wuxuu directly ka keeni karaa internetka shirkadda la yiraahdo ISP laga yaabaa inaad weydiisaan waxaa laga taagantay internet service provider. kuwa provide gareeya shirkadda provide Telecom wax noocaas provide gareeya internetka and then to the internet and then on to the internet. ani asla fahmay ma filaya waayo routerka derg waa expert baad ku tiim waad isticmaashaan inta ugu badan. wireless access point baa yimi hadaba wireless access point. this device allows connection to the wired network. waxaa loo isticmaalaa wired network adigoo wire badan ku xidhaya. this device allows connection to wired network using Wi-Fi. waxa la yiraahdo Wi-Fi waad maqashaan in badan baad maqashaan laakiin garanaysaa ma filaya waxay taagantay waa wireless fidelity way taagantay can be stand alone keligii taagnaan karaa a part of a routerka making it wireless router. waxaan filaya inaad caado qorateen intan ku celiya casharka dib ugu noqda. rumaantii imtixaan baa jiri doona marka dhammaan network ee pluskan insha Allah. waa macalinka Jamaal koorasideen inta maanta inoo eegtay way sii socon doonaan casharaanteena basic network ee plus oo wixii su'aalaad ka qabtaan waa rimgroups@gmail.com. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.